Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Grand Online Academy. This is teacher Mohamed. And in this lesson for today, we will take 6 idioms with day and night, as you see in the board, okay? Today's lesson is about idioms and they are related to day and night, okay? So before we start the lesson, I'd like you to share the lesson with your friends and family and also like the lesson by pressing the like button. Thank you very much. And the other thing I want to share with you is that we are taking new online classes. So if you're interested in that, contact us, the numbers here on the screen. Thank you very much. Dhammaan aad baan idin salaamaya bulshada iyo ardayda Soomaaliyeed sharafta badan ku soo dhawaada Grand Online Academy waa macallin Mohamed. Maanta waxaanu qaadan doonaa 10 ku saabsan idioms. Marka idioms ku naqaana waa jumladaha Englishka weeyaan oo la adeegsado sida maalinlaha ah. Marka haddii aad doonaysid inaad luqadana si wacan uga hadashid oo marka xiiso leh oo interesting ah waa inaad idiomska iyo expressionska Englishka aad ugu dadaasho. Very important, okay? They'll basically help you to sound more like a natural English speaker, okay? It will help you to sound more like a native English speaker. So make sure that you use idioms and expressions in the English language. Thank you very much. Haddaba marka aynu casharka guda galnay insha Allah waxaan markaa baran doonaa 6 jumladooda ku saabsan maalinta iyo habeenka. Okay, let's get started. Number 1 is waxa weeyaan day by day. Day by day. Marka idioms waa kuwa aan hoosta ka mariyay xariijinta ama qalinka buluuga. Day by day. Number 2, my day. My day. Number 3, call it a day. Call it a day. Ama call it a day. Call it a day. Okay. Number 4, night owl. A night owl. A night owl. Try to pronounce. Isku day inaad pronunciation kana saxdo. Okay. All night long. All night long. Okay? And the last one is day and night. Day and night. Marka as you see, dhammaantood waxay la tacalluqaan ama ku saabsan yihiin. All these idioms for today's lesson are related to day and night. Okay? Haddaba aynu jumlada ku dhex macnayno si aad u fahanto marka waxa weeyaan waxay macnuhu yahay. Waxaan sidoo kale ka codsanayaa ardayga qaaliga ama waxa weeyaan daawadaha sharafta badan inaad isku daydo jumladaha inaad isticmaasho oo in the comment section below aad ku soo qorto. Okay. Number 1, he's getting better day by day. He's getting better day by day. Okay? Marka waa qof uu soo wacnaanaya ama uu soo wanaagsanaanaya maalinba maalinta ka dambaysa. Day by day, as each day passes, okay? Was something that happens every day gradually. Wax si maalinla u dhacaya qof oo kale imka xanuunsanaya leedahay wallahi hadda uu soo caafimaadayaba hadda uu soo roonaanaya ama uu soo wacnaanaya. He's getting better. Uu soo wacnaanaya ama uu ka sii fiicnaanaya day by day, maalinba maalinta ka dambaysa. Okay, number 2. Thanks. Thanks. You really made my day. You really made my day. Marka made my day oo ah waxa weeyaan idiomka ku jira number 2 waxa weeyaan markaad qof ka farxiso maanta oo kale waad iga farxiso weeyaan. Oh, thank you very much. You actually made my day. Marka waxa maxay? You actually made me happy because you did this and that for me. Waxbaad ii qabatay weeyaan qof waad maanta ka farxisay. Oh, thank you very much. You actually made my day today. Maanta waad iga farxisay. Marka made my day oo markaad qof ka farxisay, okay? Number 3, okay, let's call it a day. Okay, let's call it a day. Marka call it a day macnaheedu waxa weeyaan aynu dhamayno, okay? It means to stop doing something because you don't want to do it more, okay? For example, you finish the work and you're working with your team or some other people and then you want to tell them, okay, let's stop it there and leave. Okay, marka waxaad doonaysaa dad baad la shaqaysaa waxaad ku leedahay aan shaqada dhamayno halka aynu ku joojino aynu iska tagno. Marka this is a friendly idiom. Waa idiom marka wanaagsan oo la isticmaalo markaad shaqada dhayso. Maxaad oranaysaa? Excuse me. Okay, let's call it a day. Macnaheedu weeyaan halka aynu shaqada ku joojino in maanta halka ku joojino aynan iska rawaxno. Markaad leedahay halka maxaad samaynaysaa? Moorinaysid. Okay, let's stop the work and leave. Waxa ka wanaagsan inaad tiraahdo let's call it a day. Let's call it a day. Waa halka aynu shaqada ku joojino weeyaan. Okay.
Number 4, John, ninka la yidhaahdo, John is a night owl. John is a night owl. Marka a night owl macnaheedu waxa weeyaan waa qof xiiseeya inuu habeenkii wax qabto, inta badan habeenkii buu active yahay. Waayo dadka qaar waxa la yidhaahdaa ama waxa weeye waa a day person ama a night person. ama waxa la yidhahdaa day worker ama night worker. Dad baa habeenkii ku fiican shaqada, dadna maalinkii. Marka ninka John la yidhaahdo habeenkii buu xiiseeya. He prefers to be active and do something at night. habeenkii buu jecel inuu wax qabto. Marka John is a night owl. Marka leedahay anigu habeenkii baan xiiseeya inta badan aan active. Maxaa I am a night owl. I am a night owl. Haddaad maalinkii tahayna maxaad oranaysaa? I'm a day worker. I am a day worker. I'm a day person. You know, actually, I am a day person and I like to do things in the morning. You know what I mean? Saas oran kartaa. Okay, number 5. The baby was crying all night long. The baby was crying all night long. Ilmaha yari habeenkii oo dhan buu ooyayay. Habeenkii oo dhan. Inta badan waa iska buunbuunin. Exaggeration baa ku jira ama buunbuunin. Waayo qof habeen oo dhan ooyi kara ma jiro. Marka waxa laga wadaa in badan buu ooyay. The baby was crying all night long. Marka habeenkii oo dhan buu ooyay. Okay. Marka all night long waa wax dhacayay the whole night. Habeenkii oo dhan. Okay, number 6. She looks after her mother day and night. She looks after her mother day and night. Waxay daryeeshaa oo ilaalishaa hooyadeed maalinka iyo habeenka oo dhan. Okay? It means she, helps her mother the whole day and the whole night. Around the clock. Habeen iyo maalin oo dhan iyadaa ilaalisa. Waxay u baahan tahay u qabataa. Way ilaalisaa. Waa maybe qof oo xanuunsanaya ama qof weynaaday oo da' Okay? It could be anything. Okay? So that's it for today. And thank you very much for watching the lesson. I hope you enjoyed it. And if you want to learn English online or the other language that we offer, you can contact us, the numbers here on the screen. Thank you very much. See you next time in the next class. Assalamu alaikum.